soo dhawaada saaxiibayaal wiilkeennii sirta films sheekadeennu waxay ku bilaabanaysaa anigoo idiin sheegaya inaan xanuunsanayay isbuucii la soo dhaafay sidaas darteedna aanan u soo gelin muuqaaladiinni joogtada ahaa ee aan ku soo gudbin jirnay barteennan iyo ninka 18 jira oo lagu magacaabo Inu kaasoo alaabtiisa xidhxidhay islamarkaana qoyskiisa u soo raray Tokyo waxaa habeen iyo maalin u shaqayn jiray si adag si uu xaaskiisa iyo carruurtiisa u siiyo raaxo iyo nolol wanaagsan laakiin dadka ku hareeraysan cidna qiimo uma aysan yeelin oo qoyskiisu wax jacayl uma aysan hayn cid ixtiraamtaana ma aysan jirin maalin kasta inuu wuxuu raaci jiray tareen cidhiidhiya si uu xaafadiisa u tago halkaas oo lagula dhaqmi jiray si ka liidata xayawaanka ugu dambayntii inuu wuxuu fadhiistay gurigiisa hortiisa isagoo ka fikiraya nolosha murugada leh uu ku jiro si lama filaana ayaa soo lugeeyay oo soo hor istaagay luqunta eyga waxaa ku xidhnaa warqad uu milkiilihiisi ku soo qoray in eygan magaciisa uu yahay Nako lana xanaaneeyo isla waqtigaas xaaska Inu oo lagu magacaabo Jenny ayaa banaanka u soo baxday Inu wuxuu isku dayay inuu u sheego in maanta laga bilaabo eygan uu ka mid yahay qoyska laakiin inta uusan hadlinba Jenny waxay ku tiri eygan dibadda iga saar markiibana gudaha ayay gashay subaxdii xigtay Inu wuxuu aaday dhakhtarka si uu baaritaan u sameeyo laakiin wuxuu ogaaday inuu qabo cudurka kansarka cudurkaasna uu ku faafay jirkiisa oo dhan maadaama aysan jirin fursad uu ku badbaado wuxuu haystay 3 bilood oo kaliya habeenkii xilliga cashada wuxuu qoyskiisa u sheegay cudurkiisa laakiin cidna dhag jalaq uma siin hadalkiisa balse waxay bilaabeen inay ka cawdaan isaga kadib Jenny waxay weydiisay sababta uu weli eygu u joogo guriga waxayna Inu ku amartay inuu hadda guriga ka saaro Inu oo niyad jabsan ayaa naaka kaxeeyay oo guriga ka baxay markii uu masaafo u jiray guriga wuxuu halkaas kaga tagay Nako wuuna isaga soo cararay si uusan eygu u soo raacin laakiin Naka ayaa ka daba orday dhinaca kale Inu wuxuu gaadhay beer wuxuuna islahaa waad ka soo tagtay Nako laakiin markuu dib eegay Nako wuxuu fadhiyay halkaas isagoo aamusnaan ku sugaya markii uu arkay ilmo ayaa indhihiisa ka soo qubatay wuxuuna Inu ka raali geliyay inuu kaligiis halkaas uga soo tegay daqiiqada kadib Inu wuxuu arkay wiil fadhiyay kursi agtiisa ah si lama filaana iftiin aad xoog badan ayaa cirka ka yimid taasoo keentay in Naka baqdin darteed uu cararo isla markiibana qarax weyn ayaa dhacay Inuna wuxuu ku jiray bartamaha qaraxaas subaxdii xigtay markuu indhaha kala qaaday wuxuu arkay inuu wax walba caadi u arki karo isagoona xidhan ookiyaalihiisii Inu wuxuu arkay Naka oo weli halkaas ku sugaya markaas ayuu kaxeeyay oo guriga la aaday quraacdii wuxuu cabay maraqa miso kadibna haraad aad u daran ayaa qabtay biyo badan ayuu cabay qolkiisa ayuuna aaday halkaas wuxuu ku arkay kilul oo ka baxaya gacmihiisa isla markiibana shaatigii ayuu iska bixiyay wuxuuna dareemay inay wax khaldan yihiin sikadiisa gacantiisa midig waxay isku bedeshay hub casriya maraqiina uu ka soo daatay markuu Inu wejigiisa taabtay wuxuu dareemay in luquntiisa wax yaab leh ay ku yaalaan markuu jiiday maqaarka luquntiisa wejigiisa ayaa madaxa ka go'ay wuxuuna arkay in madaxiisa gudihiisa ay ka buuxaan fiilooyin aad u badan markii uu muraayada isku eegay waxba uu fahmi waayay sababtoo ah labadiisa gacmood waxay isku bedeleen hub ma uusan garanayn wuxuu sameeyo Nako markuu arkay Inu cabsi darteed ayuu u ciyay Jenny ayaa codka eyga maqashay oo soo gashay qolka laakiin inta aysan soo gelin jirka Inu wuxuu ku soo laabtay sidii hore kadib waxaan arkaynaa wiil la yiraahdo Hiro maalin ayuu aaday guriga saaxiibkiisa ugu fiican oo lagu magacaabo Chako Hiro maalmo badan iskuulkiisa ma aadin sababtoo carruurta ayaa dhibi jiray hadda saaxiibkiis Chako ayuu balkoonka ugu yeedhay wuxuuna farta ugu fiiqay shimbir hawada maraysa isagoo iska dhigaya inuu xabad ku ridayo isla waqtigaas shimbirtii hawada ayay ku dhimatay Chako wuxuu fahmi waayay waxa dhacay Hiro wuxuu Chako geeyay garaash halkaas oo uu awoodiisa ku isticmaalay inuu gawaari badan isku dhufto kadib shaatiga ayuu iska bixiyay jirkiisa oo dhanna wuxuu isku bedelay hub wuxuu sheegay inuusan hadda ahayn bini'aadam caadi ah balse uu noqday superhero dhinaca kale Inu weli ma dareemin awoodiisa gaarka ah wuxuuna u haystay in wixii dhacay oo dhan ay riyo ahaayeen isla maalintaas shaqada ayaa laga eriyay wuxuuna garan waayay sida uu deynta guriga u bixin doono
doono walwalka ugu weyn wuxuu ka haystay qoyskiisa. isagoo guriga ku sii jeeda ayuu waddada ku arkay qooley dhaawacan. dhulka ayuu ka soo qaaday, awooddiisa ayuuna ku arkay meesha ay dhaawaca ka qabto. markii in muddo ah gacmihiisa ay ku jirtay, qooleydii si lama filaan ayay u bogsootay iyadoona duushay. markaas ayuu Ino ogaaday inuu leeyahay awood uu dadka ku bogsiiyo si lama filaana. wuxuu maqlay cod haweeney oo dhakhtarka ka baryasay inuu badbaadiyo wiilkeeda 10 jirka ah. wuxuuna gartay in codka uu ka imaanayo isbitaalka u dhow. wuu u degdegay qol ayuu galay, wuxuuna arkay wiil lagu magacaabo Katia kaas oo kooma ku jira. markuu Ino taabtay nidaamka jirkiisa ayaa ogaaday cudurka wiilka, wuxuuna isku dayay inuu daweeyo. daqiiqada gudahood Katia si buuxda ayuu u bogsooday, indhahana u kala qaaday. hooyadiis ayaa soo gashay, markii aragtayna ninkan qilaad way ka naxday. dhakhtarka ayayna ugu yeedhay, laakiin isla daqiiqadaas wiilkeeda ayaa u yeedhay. dhakhaatiirtiina way la yaabeen mucjisadan. Ino si dhuumaalaysiya ayuu u baxay, wuxuuna dareemay farxad uusan noloshiisa dareemin. maalintii xigtay waxaan arkaynaa Chako oo iskuulka jooga oo wiil xoog sheegta oo la yidhaahdo Teken iyo saaxiibadiisu ay dhibayaan. Hiro ayaa soo dhexgalay, Tekenna kalarka shaatiga ayuu qabtay. Hiro ayaa gacanta Teken xoog u qabtay ilaa Teken uu ka dareemay in lafihiisu ay tabayaan. Hiro wuxuu ku amray inuu Chako raali geliyo, kadibna farta ayuu ku fiiqay isagoo leh lacagta aad Chako ka xaday soo celi. Teken wuxuu yidhi wax lacaga hadda ma hayo. Chako ayaa soo dhexgalay oo celiyey, inkastoo uu Teken necba haddana ma uusan rabin in Hiro dilo. Hiro qolka ayuu ka baxay, gabadh la yidhaahdo Shion ayaa ka daba tagtay, waxayna iska baadhay geesinimo. waxayna Hiro u sheegtay inay jeceshahay, taasoo Hiro uu aad ugu farxay. kadib Hiro wuxuu wacay hooyadiis, waxayna u sheegtay in aabihii uu xanuunsan yahay una rabo inuu arko markii ugu dambaysay noloshiisa. sidaas darteed waxay ku tiri guriga aabbaha caawa casho u aad. Hiro aabbihiis wuu cadhaysnaa sababtoo isaga iyo hooyadiis ayuu ka tegey, laakiin uu aqbalay inuu aado. markuu guriga gaadhay, aabbihiis ayaa siiyey lacagta kharashka bisha cashada. wuxuu la kulmay aabbihiis xaaskiisa kale iyo 2 wiil oo ay dhashay. Hiro dhibku ma qabin iyaga, laakiin aabbihiis weli ma cafin. markii macmacaanka la cunayay, wuxuu go'aansaday inuu aabbihiis toogto, laakiin walaalihiis ayaa u maleeyay inuu ciyaarayo, iyagoona iska dhigaya inay xabado ku ridayaan. tani waxay joojisay Hiro. saacado kadib markii uu soo laabanayay isagoo aad u cadhaysan, wuxuu galay guriga deriska, wuxuuna si naxariis dara ah xabada ugu dhuftay ninkii guriga lahaa. kadibna xaaskiisa ayuu dilay. dhinaca kale Ino wuxuu isbitaalka ku daweynayay caruur. markii uu maqlay qaylada gabadh, wuu cararay si uu u caawiyo, laakiin markii uu guriga galay wuxuu arkay gabadhii oo madaxa xabad lagaga dhuftay oo dhimatay. wuxuuna isku dayay inuu bogsiiyo, laakiin awood uma lahayn inuu dadka dhintay soo nooleeyo. qolka kale ayuu aaday, wuxuuna arkay meydka waalidka gabadha. Hiro ayaana hor taagnaa. Hiro ma rabin in cid markhaati ah ay noolaato, sidaas darteed Ino ayuu xabad ku dhuftay, wuuna iska tegey. muddo kadib Ino uu soo kacay oo Hiro ayuu ka daba tegey, laakiin uu ka soo daahay. telefishinada oo dhan waxaa laga hadlayay dilka arxanka daran ee loo geystay qoyskaas. booliisku waxay sheegeen in qoyskaas qori lagu dilay, laakiin aan wax rasaasa laga helin goobta. markii uu Chako la kulmay Hiro, wuxuu weydiiyey inuu qoyskaas isagu dilay. Hiro wuu qirtay dembiga, wuxuuna yidhi ma ihi bini'aadam, waxaan ahay qof awood badan. wuxuuna ballan qaaday inuu Chako mar walba difaaci doono, laakiin Chako aad buu uga baqay. wuxuuna Hiro u sheegay inuu ka fogaado weligiis, laakiin daawadahaygii anigu iskama kaa fogayn karo. waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo tilmaamto inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. boqolkiiba 95 daawadayaasha ayaan halkan ku saaxiibnay channelkeena maysan subscribe garayn, taasoo annaga nagu ah niyad jab. daawadahaygaan jeclahay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe tiraahdo channelkeena si ay muuqaalada dambe ku soo gaadhaan. haddii aynu u soo noqono muuqaalkeena, Hiro markuu guriga yimid, hooyadiis waxay u sheegtay inuu bisha dambe aabihiis la soo noolaado. markii uu sababta weydiiyey, waxay tiri waxaan qabaa kansar, waqtina iima hadhin. Hiro aad buu uga naxay midaas, wuxuuna yidhi kuma ogolaanayo inaad dhimato. dhinaca kale Ino oo shaqo la'aana ayaa murugsanaa. markaas ayuu maqlay baryada Chako
Chako wuxuu Ilaahay ka baryayay inuu Hiro joojiyo si uusan dad kale u dilin. Markuu taas maqlay, inuu wuxuu qaatay Nako wuxuuna u duulay beertii uu Chaka joogay. Hadda wuxuu go'aansaday inuu awoodiisa u isticmaalo badbaadinta dadka. Chaka ayuu la kulmay, wuxuuna uga sheekeeyay habeenkii isaga iyo Hiro ay heleen awoodda. Wuxuu sheegay in Hiro uu fadhiyay kursiga ku xiga markii qaraxu dhacay. Chaka ayaa weydiiyey, waa maxay daciiftinimadaada haddii ay isku mid yihiin? Hiro waxaa lagaga adkaan karaa isla daciiftinimadaas. Inuu wuxuu yidhi, daciiftinimadaydu waa maraqa miiso, sababtoo ah markii aan cabbay jidhkayga ayaa soo celiyey. Maalintaas wixii ka dambeeyey, Chaka wuxuu bilaabay inuu tababaro si uu u wajaho Hiro. Ugu horrayn wuxuu baray inuu fartiisa xabad kaga rido caag kafe. Markuu guulaystay kadib wuu daalay oo biyo ayuu cabbay, laakiin jidhkiisa ayaa soo celiyey biyahaas. Chaka ayaa akhriyey warqadda dhalada biyaha ku dhajisan, waxayna lahayd macdanta cusbada. Chaka wuxuu gartay in maraqa miiso uu isna cusbo leeyahay, taas oo ka dhigan in jidhka Ino uusan dheefshiidi karin sodiumka. Maalmo kadib, Hiro wuxuu hooyadiis geeyey dhakhtar. Dhakhtarkuna wuxuu u sheegay in si mucjiso ah kansarkii uu baaba'ay oo ay caafimaad qabto. Aad bay u farxeen, laakiin markay soo laabanayeen, booliiska ayaa joojiyey Hiro si ay wax uga weydiiyaan kiiska dilka qoyska. Cabsida in la xidho darteed, Hiro wuu cararay, booliiskuna way eryadeen. Intii uu cararayay, wuxuu dilay 3 askari saacado gudahood. Wararka baxsashada Hiro ayaa TV-ga ku faafay. Maalintii xigtay, Shion oo iskuulka ka soo laabanaysa ayaa aragtay Hiro, waxayna ku tiri gurigayga aan aadno. Waxayna u sheegtay in ayadeed iyo iyada oo kaliya ay guriga ku nool yihiin, sidaas darteed uu halkaas ku badbaadayo. Inuu gabadhiisa Mari markay guriga ku soo laabanaysay, waxay aragtay aabaheed iyo Chaka oo wada jooga. Markay Chaka weydiisay halkay iska barteen, Chaka wuxuu u sheegay Bena inay Free Fire ku wada kulmeen. Dhinaca kale, Hiro wuxuu TV-ga ka arkay in warbaahintu ay dhibtay hooyadiis, iyagoo ku eedeynaya dambiyada wiilkeeda. Kadib Hiro wuxuu ogaaday in hooyadiis ay u adkaysan weyday cadaadiskaas, sidaas darteedna ay isku dishay. Hiro wuxuu internetka ka akhriyay dadka ka hadlaya kiiska. Wiil dhalinyaro ayaana soo qoray inuu isagu warbaahinta siiyey ciwaanka guriga hooyada Hiro. Dad badan ayaa wiilkaas ammaanay. Hiro oo caraysan ayaa wiilkaas video call ku wacay. Wiilkii uu farxay markuu arkay Hiro, laakiin Hiro ayaa farta ku fiiqay oo shaashada ka dhex dilay. Wiilkii wuxuu baryay in loo naxariisto, laakiin Hiro ma joogsan ilaa uu ka dhintay. Kadib wuxuu dilay dadkii dhammaan internetka kula hadlayay wiilkaas oo ammaanayay. Dhacdadan waxay argagax ku riday xarunta booliiska Tokyo. Habeenkii markii Shion u timid Hiro wuxuu qirtay inuu isagu dilay qoyskaas, laakiin Shion way rumaysan weyday. Hiro ayaana tusay gacantiisa robotka ah, wuxuuna ula duulay hawada. Shion waxay u oyday dadkii uu Hiro dilay, laakiin waxay tiri midaas kaagama tegaya Hiro. Markii ay guriga ku soo laabteen, Shion oo biyo cabaysa, waxaa soo galay ciidamada gaarka ah. Shion ayaa qaylisay oo Hiro ku tiri carar, laakiin Hiro wuxuu isku dhigay xabadaha si uu Shion u difaaco. Hubkiisa ayuu la soo baxay oo dilay dhammaan ciidamadii. Markuu soo kacay, wuxuu arkay in Shion ayadii ay dhimatay. Shionna aysan neefsanayn, inkastoo isku dayay inuu difaaco, haddana waxba ma uusan samayn karin, wuuna ka cararay. Dhimashada Shion waxay ku abuurtay argoosi xooggan. Maalintii xigtay, inuu wuxuu qoyskiisa u sheegay inaysan isticmaalin telefoonada iyo kombiyuutarada, sababtoo ah Hiro wuxuu dadka ka dilaa shaashadaha. Qoyskiisu dan kama gelin. Saacado kadib, Hiro wuxuu jabsaday shaashada weyn ee magaalada, wuxuuna ku dhawaaqay dagaal. Wuxuuna yidhi dagaalka booliiska ayaa bilaabay, aniguna waan dhammaynayaa, dalkan oo dhanna waan laynayaa. Kadibna wuxuu bilaabay inuu dadka wadooyinka taagan laayo. Inuu oo la tababaranayay Chako ayaa maqlay qaylada dadka, wuuna u gurmaday. Wuxuuna isku dayay inuu Hiro ka saaro shaashada, laakiin Hiro ayaa sii waday dilka. Mari iyo asxaabteeda ayaa magaalada joogay. Hiro ayaana bilaabay inuu iyagana laayo, isagoo u maraya teleefanadooda. Inuu wuxuu jabsaday shaashadaha, wuxuuna soo daayay muuqaalka Chako oo dadka ugu digayay inay ka fogaadaan shaashadaha. Hiro wuxuu gantaal ku dhuftay shaashada weyn ee dhismayaal badan oo uu ku jiro midda ay ku jirto Mari. Ino ayaa hor istaagay Hiro, wuxuuna u sheegay inay isla joogeen habeenkii qaraxa. Hiro wuxuu rabay inuu
dalka burburiyo markaas ayuu Ino xabad ku riday dagaal ayaa dhex maray Ino wuxuu maqlay qaylada gabadhiisa wuuna u cararay laakiin Hiro ayaa qabtay oo dhismaha ku tuuray Ino wuxuu ku dhacay helikobtarka TV-ga Hiro ayaa yimid oo wariye iyo kaamirmaan ka soo tuuray helikobtarka Ino wuxuu qabtay ninkii kaamirada waday laakiin Hiro ayaa dilay duuliyihii helikobtarkii uu dhici gaadhay laakiin Ino iyo ninkii kaamiramaanka ahaa way ka boodeen Hiro ayaa dilay ninkii kaamiramaanka ahaa wuxuuna Ino weydiiyey inuu ku soo biiro isagoo biyo cabaya Ino wuxuu xabad ku dhuftay dhaladii biyaha wuxuuna u tuuray biyo cusbo leh markuu Hiro cabay nidaamkiisa ayaa khalkhal galay labadooduna waxay u duuleen hawada sare markuu Hiro isku dayay inuu weeraro motoradiisii ayaa istaagay Ino ayaana gantaal ku dhuftay oo ka adkaaday kadib Ino wuxuu u degdegay gabadhiisa Mari way dhimatay markuu gaadhay laakiin wuxuu u sameeyey CPR wuuna bogsiiyey neefteeda ayaa soo noqotay markuu habsiiyey Hiro ayaa soo laabtay oo Ino meel fog ku tuuray Hiro wuxuu bilaabay inuu dadkii hadhilaayo wuxuuna hor yimid Mari markuu xabad ku riday Ino ayaa isu dhigay laakiin Mari xabadda ayaa ku dhacday Hiro wuxuu rabay inuu Mari dilo laakiin Ino ayaa difaacayay kadib markii si xun loo garaacay madaxa Ino ayaa furmay Marina waxay ogaatay in aabaheed uusan ahayn bini'aadam caadi ah Hiro wuxuu Mari ka soo tuuray daaqadda Ino wuxuu ka baryay inuu dhaafo laakiin Hiro wuu tuuray markaas ayaa awoodda Ino oo dhan iskugu timid wuxuuna hal mar burburiyey Hiro wuxuuna u duulay si xawli ah wuxuuna qabtay Mari inta aysan dhulka ku dhicin isbuuc kadib TV-ga waxaa laga sheegay dhimashada Hiro booliisku waxay heleen kaliya qaybo ka mid ah jidhkiisa guriga Ino Mari oo kaliya ayaa og xaqiiqada aabaheed dhinaca kale waxaan arkaynaa in Hiro weli uu nool yahay wuxuu u yimid Chaco si uu u macsalaameeyo maadaama uu ka tegay Japan Chaco uu ku farxay inuu nool yahay wuxuuna ka codsaday inay mar dambe wada ciyaaraan laakiin markuu soo jeestay Hiro wuu baxay haddii aad ka heshay muuqaalka like saar channelkana subscribe day oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan oo ka cajabin doona waxaana inoo balana muuqaalkan xiga